maanta oo ay tahay bisha June kowdeedii sidii ballantu ahayd in bishiiba mar aan kulan la yeelano dadweynaha reer Puntland iyo Soomaaliyeedba sidaad la socotaan muddadii bisha ahayd oo hadda u dambeysay Puntland waxa ka dhacay isbeddello waaweyn oo runtii mudan in la dul istaago waxaan mar labaad halka rabaa inaan bulshada ugu celiyo maadaama ay tahay dhacdadii ugu xoogga weynayd oo ugu xanuunka badnayd ee dhacday dilkii gudoomiyaha gobolka Mudug oo dhagarqabayaashu ay isaga iyo dad kaleeto halka ay ku xasuuqeen fursadaas ka dhalatay dilka kadib Puntland runtii waxay u ahayd baraarug ballaaran iyadoo horeyba heegan adag ugu jirtay siday u sugi lahayd amniga u ilaalin lahayd xasiloonida dadka reer Puntland runtii waxa ay laamaha amnigu ay qaadeen arrimo badan ay ku adkeynayaan amniga guud ee Puntland gaar ahaan ay ku dabagelayaan dadkii ficilkaas fuliyay in badan gacanta lagu hayaa kuwa badan waa lagu daba jiraa baaritaan aad u fiican oo runtii xaqiiqadiisii loo dhow yahay ayaa socda galayna meelo aad u fara badan oo dhagarqabayaashu ay ahayd waxay maleegayeen intaa wixii ka dambeysay waxaa la fashiliyay dhowr isku day waxaana la baajiyay qaraxyo kale oo kuwa la mid ah oo ka dhici lahaa magaalooyinka waaweyn ee Puntland qaybo ka mid ah runtii geeridaas xanuunka badneed ee dhacday tacsidii loo dhigay waxaan uga mahadcelinayaa maamulka galmudug iyo xildhibaanada iyo senatarada galmudug u matala dowladda federaalka ah sida mugale ay uga soo qayb galeen tacsidaas ay u muujiyeen ehelnimada u muujiyeen darisnimada u muujiyeen sida ay u garab taagan yihiin Puntland dhaawac soo gaaray waxa ay furtay beej cusub oo runtii yididiila nagelisay in aan hadda rajaynayno in aan wada cirib tiri doono al-shabaab ay ku dhuumaalaysanaya labada dhinac ee Puntland maamulka cusub oo madaxweyne qorqor hogaaminaya wasiirada runtii hadda shaqada gacanta ku haya waxaan ku bogaadinaynaa dadaalka badan ay wadaan sidii ay galmudug maamulkeeda ay u yagleeli lahaayeen sidii u horumarin lahaayeen amnigeeda tallaabooyinka ilaa hadda ay qaadeen waa tallaabooyin runtii mudan in lagu dhiirigeliyo shacabka reer galmudugna ay ku diirsadeen Puntlandna ay gelinaysa farxad horumarka galmudug ay ku socoto muujin doontana iskaashi dhinacyo badan ah shirkii golihii wasiirada ee ka qayb galay tacsida iyo xildhibaanadii Puntland ee ka dhacay gaalkacyo dhinaca Puntland sidoo kalena ka dhacay dhinaca galmudug runtii waxa uu ahaa shir miro dhal ah oo wax badan oo ku saabsan sidii iskaashi looga yeelan lahaa dhinaca amniga deganaanshaha iyo horumarka labada dhinac ee bulshada iyo isdhexgalkeeda looga wada hadlay waxaa sidoo kale laga qayb qaatay baajinadii la baajiyay oo cadow dhagarqabayaale ay wadeen siday isku dhufan lahaayeen qabaa'ilka labada dhinac dega kadibna ay maamuladu u dagaalami lahaayeen dadaalkaas hawshii la geliyay oo labada dhinacna ay geliyeenna waxay noqotay dadaal miro dhal ah oo runtii aan ku bogaadinayay intii ka qayb gashay oo dhan baajintii la baajiyay isku dayadii iyo dagaaladii la rabay in laga alooso dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo ku beegan intaas oo dhan runtii waxa ay ka mid tahay waxyaabihii dhacay muddadii hadda u dambeysay ee bisha waxaa kale oo runtii dhacay dabaylo roobab si wata oo ka khatar yar kuwii ka dhacay magaalada Qardho oo ay waxyeelo kooban ay ka soo gaartay magaalooyinka Xarfo Buurtile Bacaadweyn Baran iyo tuulooyin iyo magaalooyin ku yaala dhinaca bariga gobolka bari ka tirsan 90 iyo meelo kale oo la mid ah runtii khasaaruhu way koobnaayeen inta badanna saqafyada guryaha ayaa ay wax ka gaarsiiyeen goobo koobanna waa ay dudumiyeen inkastoo dad aysan wax ku noqon laakiin xoolo
ay maaragtay iyaguna ay haleeshay arrintaa way jirtay runtii barwaaqo kasta nimco kasta nusqaanteeda leedahay barwaaqadii faraha badnaa ee gobollada ka da-ay waxay meelaha qaybta sababeen dhaawacyadaas waxaa sidoo kale si wanaagsan u socday gurmadkii magaalada Qardho oo runtii isagana soo gabagaboobay meel gabagaba maraya tallaabooyinkii ku xigay oo ku saabsanaa sidii loo samayn lahaa xal waara oo biyahaas dib dambe u soo noqon lahayn dawladda iyo hay-ado iyaguna ka kaalmayn doona Talyaani ayaa meesha tagay weli waxaa socda daraasadihii kama dambaysta ah waxaan rajaynayaa guddiga gacanta ku hayay arrimaha magaalada Qardhood inay maalmaha soo socda wajiga labaad u gudbi doonaan sidoo kale roobabkii muddadii hadda u dambeysay ee sanadka ah gugaan deertii ka horeysay iyo guyii ka horeeyay da-ay dhaawac badan buu wuxuu gaarsiiyey infrastructure-ka ugu muhiimsan tahay jidka isku xira Qardho iyo magaalada Galkacyo runtii waxaan dawladdu ay qaadatay go'aan isku tashi ah waxay rajo ka qabtaa mashaariic waaweyn oo dib loogu wada habaynayo oo daraasadoodii iyo dadaaladoodii socdo laakiin meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhaawacyadu gaareen oo jidka meesha ugu khatarta badan ah oo magaalo loo yaqaan meermeerka ama magaalada Boosaaso marka laga soo tago magaalada Yalho iyo Kalbayr u dhaxaysa oo ilaa 4 buundon ay ka go'een jidkana uu gaaray heer uu maaragtay adag tahay in la maro waxaa lagu sameeyay dib u habayn waxaa la sameeyay jidad hareer mar ah oo inta loogu talgalay jid ku socdo waxaan filayaa in media aad uga aragteen wasaaradda howlaha guud iyo shirkadda Ceel Daahir oo runtii shaqadaas gacanta ku haysa waxaan uga mahadcelinayaa sida sharafta leh howlwadeennada ay maaragtay ay ugu shaqeeyeen oo runtii waa hawl dawladda Puntland ay wada fulinayso waa hawl shirkad dawladda Puntland ay leedahay ay fulinayso oo wax faa'iido doona aan ahayn laakiin waxay muujinaysaa taas isku tashiga Puntland heerka uu gaarsiisan yahay waa shirkadii loo aasaasay inay Ceel Daahir Erigaabo jirkaas ay dhisto shaqadaasna way wadaa magaalada Boosaaso shaqooyin bay ka qabatay haddana taas ay gacanta ku haysaa waxaa kaloo iyadana bareer socday inta ka soo sokaysa Kalbayr ilaa iyo Garow iyagana daraasado kooban lagu celiyay tii hore ballaarnayd si iyadana shaqo meelaha halista ah loo bilaabo shaqadaas meel fiican bay maraysaa ilaa 2 kilomitir ziyaada hadda laamigii baa la saaray inta kalena way ku socotaa buundooyinkiina dhismaha ku socda arrimahaas waxay ahaayeen arrimaha aan isleeyahay Puntland waxyaabihii ka qabso waxaa kaloo Puntland muddadii hadda u dambeysay shaqo xoog leh ka socota dhinaca dimuqraadiyeynta iyo ururada 17 ah ee ku guuleystay in ay isdiiwaan geliyaan in ay u tartamaan siday u noqon lahayn axsaabta la rajaynayo inay dalkan yeeshaan dhowaan runtii iyada oo waqti adag oo coronavirus lagu jiro la joojiyay isku tagayada faraha badan in la sameeyo haddana iyadoo ilaalinaysa guddigii loo xil saaray doorashooyinku arrintii ballanqaadkoodii inuusan beenoobin waxa ay jeclaysatay inaan dhib badan lagu samayn xilligii loo qorsheeyey in qaybaha ka dhiman ururada xagga registrationka inay soo dhammaystiraan oo ku beegan bishan hadda noo dhalatay 22keeda ururka dawladda ka muddadii u dambeysay waxa uu runtii furay ilaa 15 goobood 9 degmo magaalo madaxyada oo ah 9 gobol ilaa 6-7 kaleeto magaalo oo gobolka Nugaal iyo gobolka Bari iyo gobolka Mudug intaba leh iyo gobolka Sanaag magaalooyin ka baxsan kuwa magaalo madaxyada ay laga furay waxaa laga furay 9 gobol waxaa laga furay magaalada Buuhoodle waxaa laga furay magaalada Galdogob waxaa laga furay magaalada Baran waxaa laga furay magaalada Qardho Boosaaso Eyl waxaa laga furay meelo fara badan ayaa runtii laga furay oo ilaa iyo tiradooda 15 magaalo ay gaaraysa dhahar baa laga furay runtii Dangoreya laga furay Eyl baa laga furay Buurtinla laga furay maanta u dambeysay intaasba waxay muujiyeen runtii dadka reer Puntland sida ay xisbiga ama ururka dawladda ay ugu heelan yihiin
oo ay isu rajis garaynayaan oo si wanaagsan usoo dhaweynayaan. waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa magaalooyinka fogfog oo runtii sida xamaasadda leh ay ka muuqatay, sida ay ugu heelan yihiin taabagelinta nidaamka axsaabta badan iyo ururka dowladda. waxaan uga mahadcelinayaa xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo howlwadeennadii kale xisbiga ee tegey dhammaan goobahaas. gaar ahaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dadkii magaalada Buuhoodle sida xamaasadda leh ay uga qayb galeen oo u soo dhaweeyeen shacabka Buuhoodle oo lagu yaqaano Soomaalinimo, Puntlandnimo. waan u mahadcelinayaa runtii, waana rajaynayaa inay noqon doonto magaalooyinka ururka ka ah oo sida xooggan ugu guulaysan doono haddii ilaahay. intaa markii aan uga baxo waxyaabahaas, dabcan cudurkii coronavirus saad ogtihiin, inkastoo xajmigii uu meelo badan oo adduunka ka mid ah hore ugu socday uu gaabis galay, haddana meelo badan ayuu aad ugu sii fidaya. sida la caddeeyey, xanuunkan waa xanuun si mawjada u socda, marna kor u kacaya marna hoos u dhacaya. geeska Afrika sida hadda muuqanaysa marar buu hoos u dhacay, haddana waxaa la sheegayaa wadamada dariska aan qayb ka mid ah inuu haddana laba kaclayn sameynayo oo kor u socdo. Puntland ilaa iyo hadda runtii wax 1000 qof ku dhow ayaa tastiga lagu sameeyey, ilaa iyo 185 qof ayaa laga helay, 6 qof ayaa u dhimatay, ilaa 16 qof ayaa recovery noqotay ama ka bogsootay. calaamadaha dadkii uu ku dhacay oo bogsoonaya ayaa aad u soo badanaya. dabcan intooda badan way caafimaad qabaan, laakiin ilaa tastiyadii sida labada tasti ay markay dhammaystaan ayaa loo aqoonsanaya inuu gebi ahaanba uu xanuun ka baxay. laakiin magaaladu waxa ay dareemaysaa iyo dadkuba in xanuunkii uu soo yaraanayo. taa macnaheedu maaha in xanuunkii uu tegey oo waxyaabihii ku saabsanaa diyaar garowga in hoos loo dhigo. dabcan dowladdu waxay qaadatay go'aano ay ka mid yihiin in dugsi quraanadii la furo iyadoo eegaysa xanuunka iyo sida ay u maareeyeen dalalka kaleeto oo intooda badan iskuulaadka weliba primaryga furay, iyadoo difaaca carruurtu la sheegay inuu ka awood badan yahay, iyo kaysaska hadda aan aragnay oo runtii aysan ku jirin kaysas dad carruur ah. taa waxay na dhiirigelinaysaa annagoo weli xadarkii qabna in carruurtii naftirkooda aysan ku dhicin aqoon darro. aqoon darrada waxaa uga sii daran carruurtii inaysan helin firaaq fara badan oo sababaha in ay akhlaaq xumo kaleeto ay kasbadaan. marka arrintaas runtii annagoo la tashanay dhakhaatiirta, la tashanay culummada, la tashanay waalidiinta, ayaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diintu ay go'aankaas qaateen. runtiina waa go'aan weli la kormeerayo oo haddii khatar kale laga arko tallaabadeeda laga qaadi doono. xaqiiqda marka loo hadlo, bishii u dambeysay waxaa aad dadka reer Puntland ama baraha bulshada marar badan ku soo noqnoqonayay arrimo ku saabsan in Puntland khilaaf sharci ah ama khilaaf siyaasi ah ama khilaafyo noocaas oo kaleeta inuu ka jiro oo dadka badankiisa khalkhal ugu gelinayay oo ay dhici karto in dad shaqo ka dhigtay la dagaalanka iyo ceebeynta Puntland baraha bulshada ay wax badan ay uga hadlaan. waxaan rabaa dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed inaan u caddeeyo inuu Puntland ka jirin wax khilaaf sharci ah. waxaan kaloo rabaa inaan u caddeeyo inuusan jirin wax khilaaf siyaasi ah, laakiin aragti kala duwanaan maamul oo xagga shaqada ku saabsan marar badan way dhacdaa, haddana way dhacdaa, wayna dhici doontaa. ma aha wax Puntland ka baxsan xalinteeda. waana rajaynaynaa haddii ilaahay idmo in aragtida kasta oo dhacda isbedelada dhaca. isbedeladu waa xanuun badan yihiin, dad baa xilkooda waaya, dad baa xil cusub qabta. waa shay dabiici ah oo dadka xilka marka la magacaabayo ama xil laga qaadayo isbedeladaas marka qaarkood dad aan raalli ku ahayn baa dhaca. dad badanna raalli bay ku noqdaan isbedelku, laakiin waxaan rabaa inaan u caddeeyo isbedelada aan samaynayno waa isbedelo ku saabsan dardargelinta maamulka iyo tayeyntiisa oo aan u aragno inuu yahay midka Puntland laga filayay oo ah in ay dardar geliso dowladnimada iyo horu socodkeeda. waxay qayb ka mid tahay isbedelada lagu sameynayo ciidamada, waxay qayb ka mid tahay isbedelada lagu sameynayo xagga maaliyadda iyo dhaqaalaha, waxay qayb ka mid tahay isbedelada lagu sameynayo guud ahaan
puntland iyo haykalkeeda maamul socda dabcan puntland shuruucdeeda iyo qawaaniinteeda iyo dastuurkeedu khilaaf kuma jiro waa wax haabit ah oo degan oo dadka reer puntland ay samaysteen dadka oo dhanna sharcigaa ka weyn sharcigaasaa saldhig u ah cid sharciga ka weyn ma jirto dadka madaxdaana sharcigaasaa lagu doortay sharcigaasaana la rabaa inay ku dhaqmaan ciddii sharciga ku dhaqmi weydana dabcan hay-ado u qaabilsan ku ilaalinta sharciga ayaa jira waana rajaynayaa inaysan dadka reer puntland sharciga aysan khilaafi doonin dhinaca siyaasadda iyo aragtida iyo visionka puntland waa wax haabit ah oo ilaa ay maalintii la aasaasay ilaa maalin taagan oo saldhigiisu yahay in dadka reer puntland ismaamulaan isku maamulaan nabadooda ilaaliyaan deganaanshahooda ilaaliyaan dowladnimadooda ay dhowraan nidaamka dimuqraadiga ay ka shaqeeyaan oo nidaam dimuqraadi ku dhisan hore u mariyaan sharciga ilaaliyaan nidaamka federaalka iyo dalka soomaaliya siduu u degi lahaana ay qayb ka qaataan aragtidaas siyaasadeed maaha aragti khalkhal ku jirta waa aragti cad oo puntland go-aanada ay siyaasiyiinteeda hore iyo kuwa aan hadda joogno annaga aan qaadanayno mar walba waxay ku salaysan tahay aragtida dadka reer puntland ay ku salaysan aragtidooda siyaasiga ay ka leeyihiin soomaaliya waana wax cad oo ku salaysan soomaaliya mid ah soomaaliya awood leh soomaaliya federaal ah soomaaliya geeska africa iyo adduunkaba sumcad iyo sharaf ku leh taas ayaa saldhigeedu yahay taasaan anaguna ka shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo cidda naga dambaysana aan rajaynaynaa inay ku shaqayso cid kastoo aan ku shaqaynayna shacabka puntland uma ogolaanayaan inay dhaafaan ahdaaftii loo aasaasay puntland aragtidaas marka aan taa intaa uga baxo dabcan sida ku cad puntland sooyaalkeeda siyaasadeed 20kii sane u dambeeyey ee dowladda federaalka ah ee hadda jirta ee amaamudnayd laga soo bilaabo carta ilaa iyo hadda dabcan waxay dadaal ku bixinaysay inay puntland dowr ka qaadato sidii dalka soomaaliya dowlad xasilan oo degan oo sharci iyo nidaam ku dhisan oo nidaam dimuqraadiya ku dhisan oo nidaam federaal ku dhisan oo heli lahaa wax badan baa laga soo maray dowrarkii lasoo dhaafo dhanba qayb ayay ku lahayd qaybta ugu muhiimsan oo muddada 20 sano socotay oo runtii mar walba aan waxba dhaamin nidaamka kumeel gaarka maxaa yeelay inta soomaaliya ay yeelanayso dastuur la wada ogol yahay oo cod shacba loo qaaday inta ka horeysa waxa lagu dhaqmaayo waa wax kumeel gaar aan waxba ka dhicin sida qawaaniinta dawliga ku cadna weli jabtarka 7 iyo 6 ayay Soomaaliya ku dhex jirtaa inta ergey gaar ah oo qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya joogo inkasta oo dawlad ka duwantii transitionka 2012 laga baxay ee hadda aan haysano laakiin haddana weli way xadidan tahay sababaha ugu weyn ee xadidan tahayna waxa weeye waa in la helaa dastuur dhammaystiran oo la isku waafaqsan yahay oo afti dadweyne loo qaaday saad ogtihiin bishii afraad 2016 markii ugu dambeysay waxay dawladdii Soomaaliya iyo dawladda Puntland ku heshiiyeen in nidaamka lagu halqabsado oo ahaa xaq ma ahane xal buu ahaa 4.5ka in halka lagu gabagabay maxaa yeelay adduunka meel uu ka jiro nidaam noocaas oo dimuqraadi ah ma jirto adduunka dawladaha jira waa la yaqaan waa dimuqraadiya oo qof iyo cod ah oo nidaam axsaab badan ah iyo dawlado monarchy ah oo maaragtay boqortooyooyin iyo dad ay maaragtay madax ka yihiin oo kooban wax ka dhaxeeya oo kale ma jirto laakiin dawladuhu markay burburaan waxay yeeshaan waxyaabo tafaahumaad ilaa marxaladda heshiisiinta dhabta la gaarayo lagu socdo oo ah dawlad wadaag ah sida hadda aad uga maqashaan wadamada haddana la mid waxaa ka mid ah Liibiya oo habka dawladda loo maamulo iyo dawladdu maaragtay majlis baa maamula council baa maamula iyo dad isu tagay iyo meelahaas oo kale ay hababkaas maray dalal badan oo noocaas soo maray baa jira oo sida Soomaaliya kale dabcan Soomaaliya hadda waxay taagan tahay nidaamkeeda dawliga wuxuu ku dhisay nidaam la yiraahdo 4.5 bishii afraad 2016 waxaa go'aan lagu gaaray dawladda federaalka ahayd iyo dawladda Puntland markaas aad ugu ololeynaysa inay dibdib u soo noqon waxaa goobjoog ka ahaa ururada caalamiga oo dhan ugu horeysa ergeyga gaarka ah ee markaas joogay Michael Keating waxaa joogay EU-di waxaa joogay IGAD waxaa joogay African Union waxaa joogay wasiirka arrimaha dibadda IGAD madaxda markaa
u ahaa Ethiopia intaba waxa ay sameeyeen arrintaas garantoor dabcan nidaamka dawliga marka la ilaalinayo dawlad kasta dawladda ay bedesho mucaahadaadkii iyo heshiisyadii ay gashay inay fulisaa laga rabo iyo uma baahnayn taas maxaa yeelay waxay ka mid ahayd mandate-ka dawlad kasta oo Soomaaliya ka dhalatay laga sugayo inay nidaamkan qof iyo cod ay u saarto dalka oo nidaamka federal laga guuro imaarata 4.5ka nasiib darro xukuumadda hadda joogta ama dawladda hadda joogta 3 sanad iyo barka ay joogtay waa ay ku guul dareysatay inay arrintaas wax ka qabato inay ku guul dareysato waxa ka daran waxay wadaa qorshayaal marin habaabina oo khatar u keeni kara Soomaaliya mar labaad meeshii ay ka timid inay ku noqoto in ay ku kala tagto in ay dib u kala irdhowdo waxaan aad uga digaynaa in nidaam 4.5 ah oo dastuuri laga dhigayo oo hay'ado sharci ah la marinayo inay dalkan ka dhacaan mar iyo laba iyo saddex baan ka dignay arrintaas Puntland shirkii wada tashiga ee 15kii bishii saddexaad ilaa iyo 17kii bishii saddexaad ka dhacay halka aragti cad bay ka qaadatay go'aanada cadna way ka qaadatay oo masiirka Puntland ku saabsan oo dawladda ay u wakiisheen dadkii ergadii ka soo qayb galay dabcan arrintaas waxay abuuri kartaa khilaaf ay adag tahay hadhow in dib la isaga soo noqdo ma suuragal ah hay-ado sharci dejin ah oo ku yimid nidaam 4.5 ah in ay ka taliyaan masiir kama dambays ah maxaa yeelay iyaga waxay ku yimaadeen heshiis iyo afkarad siyaasadeed ku yimaadeen waxay noqdeen dad la soo xulay dad la soo doortay ma aha dabcan baarlamaanka la soo doorto ee shacabku codka siiyo oo heshiiska inta aan la dooran lagu wada heshiiyo sida dawladdu u ekaanayso sida uu dastuurku ahaanayo taas ayaa waxa la dhihi karaa baarlamaanka leh awoodda kama dambaysta ah inta baarlamaan noocaas uu jirin horena uu soo jiri jirin waxa lagu xalin jiray afkarad siyaasadeed oo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay khusayso iska afkaran jireen hadba marxaladda la marayo Puntland waxay diyaar u tahay wax kasta oo dadka Soomaaliyeed maslaxadeeda ku jiraan danteeda ku jiraan inay qayb ka qaadato waxaan ka digaynaa nidaam doorasho oo sababa dagaalo sokeeye oo sababa dibadhac oo sababa kala irdhow in dalka aan loo horseedin khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan aad ula talinayaa arrintaas inuusan taariikhda uusan ku gelin waxaan hadhow dhibaato u keenay sidoo kale waxaan halka rabaa inaan runtii ku bogaadiyo golaha xukuumadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha kulankooda khamiistii u dambeeyay go'aanadii ay ka hadal jeedintu ka soo jeediyay oo uu kala dardaarmay golaha xukuumadda inay ka shaqeeyaan sidii doorasho u dhici lahayd waqtigeeda ugu dhici lahayd doorasho laga tashaday oo saamilayda siyaasadeed ee Soomaalidu ay ka tashadeen ay u dhici lahayd hadalkaas waa hadal runtii mug leh waa hadalkii Puntland ay ku baaqi jirtay laakiin waxaan u baahanahay isaga oo ficil ah inaan aragno iyo statement sax ah oo shaqadiisa la qabanayo weli waxaan muuqan shirarkii marar badan aan ku baaqnay oo ah in dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka ay kulmaan inay ka arrimiyaan doorashada nagu soo foolda inaan dib u dhac aysan ku dhicin xilliga doorashadu waa arrin muhiim ah oo runtii ra'iisul wasaaruhuna uu ishaaray cid walba oo caqlina ay ishaarayso taas ayaa ah raasamaalka dhabta ah ee siyaasadeed ee dadka Soomaaliyeed ay maanta haystaan oo u baahan in la adkeeyo wax kasta oo dadka siyaasadda Soomaaliya mas'uulka ka ah aysan heshiis siyaasadeed ka gaarin Puntland ma aqbalayso Puntland baarlamaanka hadda aan dadka shacabka Puntland ay dooran xulashada ku tagay oo hadda waqtigiisa 4 bilood ay ka harsan tahay go'aan uma qaadi karaan arrintaas si cad baan u sheegaynaa in lagu kadsoomana ma rabno go'aanka Puntland dawladda Puntland ayuu yaalaa golayaasheeda kala duwan iyo waxgaradkeeda iyaga ayaana masiirkooda taladiisa ka qayb qaadan doona waxaan rabaa halka oo runtii hadalka aan afkiisa hore inaan ku sheegay ahayd inaan u tacsiyeeyo dadkii lagu dilay tuulada Gololey ee u dhow magaalada Balcad oo runtii dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo dadka caafimaadka shaqeeya u badnaa
dad 8 ah sida aan warbixinta ku helay 7 ka mid ah waxay ahay ka shaqeynayaan xarun caafimaad oo halka ku taala runtii dadkaas iyo qoysaskii iyo eheladii ay ka dhinteen waan u tacsiyeynaa waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu jannadii u geeyo waxaan kaloo insha Allah dawladda Hirshabeelle iyo dawladda federaalka oo ka agdhow iyadana aan ku biirinayaa dadaalka ay wadaan oo ah inay baaritaan dhab ah halkaas ay ka wadaan in la soo gabagabeeyo dhagar qabayaasha falkaas geystay oo tuhun uu ku jiro sida ay yihiin in la cadeeyo runtii cadow weeye noocu raba ha ahaado laakiin wuxuu u baahan yahay in la cadeeyo tuhunku marmar dad badan oo waxgarad oo siyaasiyiin oo hadlaya ayaan arkay oo shaki badan uu ku jiro shakigu mararka qaarkood haddii aanan jawaab laga bixin wuxuu abuuraa wax aan wanaagsanayn ayuu abuuraa marka waxaan ka codsanayaa madaxda dawladda markay waxyaabahaas kala dhacaan inay bulshada la hadlaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa la rabaa bulshada inay la hadlaan inay dejiyaan inaysan u muuqan deegaankaas iyo dadkii deganaa arrin shaki uu ka galo inaysan u muuqan marka arrintaas waxaan rajaynayaa dabcan gacanta lagu hayaa laakiin waxaa loo baahan yahay dadka in la hadlo oo la dejiyo guud ahaan dadka reer Puntland waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa isku duubni waxaan u rajaynayaa inay gacan weyn siiyaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo ururada hadda u heelan in ay nidaamka dimuqraadiyadda ay horumariyaan dabcan xukuumadahan iyo madaxweynahan iyo dawladahan waa naga go'an tahay nidaamka dimuqraadiga inaan hore u marino sidoo kaleeto bulshada reer Puntland dabcan ururka ka habaan anagu nahay ka habaan ugu yeerina dabcan ururada kaleetana iyaga laga rabaa in ay soo bandhigaan aragtiyahooda siyaasadeed waxaan rabaa in ay abuurto jawi tartan caafimaad qaba oo ilaalinaya asaasiyaadka iyo waxyaabaha thawaabidka u ah bulshada reer Puntland iyo dawladda Puntland ilaalinaya xeerarka dastuurka iyo kuwa doorashooyinka labadaba waxaan rajaynaynaa khaladaad waa ka soo baxayaan maxaa yeelay waa nidaam siyaasi oo nagu cusub xamaasadiisa la imaan doona jiil cusub oo muddo aan arag nidaam doorasho ay maaragtay xooggiisa yihiin marka iyadana waxaan rajaynayaa in aad doorasho shariif ah oo xadaari ah oo maaragtay ay ka muuqato bisayl in halkaa ay ka dhaco sidoo kale waxaan jeclahay inaan halka hambalyo uga diro shaqaalaha caafimaadka oo runtii muujiyay karti dheeraad ah waxaa ka furan 13 goobood Puntland oo lagula tacaalayo xanuunka coronavirus oo dhammaan agabyadii loogu talagalay yaalaan oo ugu muhiimsan yihiin hawlwadeenadii halka ka shaqeyn lahaa runtii habeen iyo maalin bay u soo jeedaan waxaan aan u rajaynaynaa inay horumarkaas qayb ka qaadaan waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinyarada oo runtii fursadoodii maanta ayay jaanisaystaan gabdho iyo wiilalba inay ka qayb qaataan nidaamka dimuqraadiga ah isbeddelka siyaasadeed cidda u waramaysa inay noqdaan cid haysata sifo sharci ah oo ururo siyaasi ah oo diiwaan galsan oo u leh inay bulshada la hadasho dad meelay joogaan aan garanayn iyo magacyo aysan garanayn iyo dad waxay yihiin aan la garanayn reer Puntland ahayn intay Puntland iska dhigaan maanta dhan qaylinayo ka qaylinaya Facebookyada inaysan hodin hadda wixii ka dambeeya waxaan rabnaa dadka reer Puntland inay noqdaan dad xaqiiqo ku salaysan waxaan rabnaa meelaha aan ka jilcsanahay oo qabyaalada u horeyso cidii la dagaalami lahayd waa dhalinyarada haddii dhalinyaradu ay ku guuleysan weydo inay qabyaalada la dagaalamaan inay beenta la dagaalamaan waxaa dhici karta cawaaqib xumo inay iyaga iyo bulshada Puntland ay ku dhacdo marka badbaadada Puntland waxay ku xiran tahay dhalinyarada Puntland dawladooda waxay diyaar u tahay inay gacan ku siiso dadaalkaas ay wadaan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeedba inay gacantoodii awoodooda isugu geeyaan Soomaali xasilan oo degan oo horumar leh oo dimuqraadiyad leh oo sharci u ka shaqeynaya waa mahadsantiin